السلام عليكم meel kasta aad joogtaan ma kuu sheegaa sababta ay dad badan u eedeeyaan jacaylka dabcan waad rabtaa inaad ogaato laakiin intaan kuu sheegin ka hor waxaan rabaa inaan kuu sheego jacaylku dambiile maaha ha ku sheegin inuu dambiile yahay ha eedeyn isaga maxaa yeelay waxa ay naftaadu aamintay ayaa qalbigaaga dhaawac u geystay oo sidee sababtoo ah adiga oo xiriir uu la leh qofkan ayaad waxaad aamintay ayaad waxaad gashay riyooyin ay adag tahay in si dhab yar lagu galo oo maxay yihiin riyooyinkaas waxaad ilowday qofkan inuu bini aadam yahay iyo in kale waxaad ka soo qaaday qof boqolkiiba boqol wanaagsan aan ku dhibi karin aan ku dhaawici karin aan hadal xun ku oran karin aan ka fogaan karin aan ku cidlayn karin aan wax xun ku geysan karin waxaad aamintay qofkan inuu boqolkiiba boqol wanaagsan yahay laakiin adiga oo taas aaminsan ayuu qofkii wuxuu kugu sameeyay wixii aad meesha soo dhigan maaha wax kale taas waxay kugu keentay inaad niyad jabto laakiin jacaylka dhabtahay sidaas maaha ma rabtaad inaad ogaato jacaylka dhabtahay wuxuu yahay ina keen jacaylku waa nolol jacaylku waa farxad jacaylku waa nabad jacaylku waa alle ka cabsi iyo qurux jacaylku waa wax la taaban karo wax la dareemi karo wax la arki karo wax la maqli karo iyo wax lagu raaxaysan karo haddii uu intaas oo astaamood leeyahay goormuu yimaadaa jacaylka dhabta ah ee runta ah ee macaanka badan ee naxariista badan ee wanaagga badan ee carafta badan ee wanaagga iyo quruxda iyo shacniga badan wuxuu yimaadaa xiriirka ka horeeya guurka jacayl lama dhaho ee xiriir baa la dhahaa haddii xiriirkaas aad jacayl ahaan u aamintana waxaa kugu dhacaysa wixii aan soo sheegnay markii hore kadibna waxay iman doontaa inaad tiraahdo jacaylku waa dambiile laakiin jacaylka guurka ka dambeeya dambiile maahan waa is-aaminaad buu ku dhisan yahay kalsooni buu ku dhisan yahay farxad buu ku dhisan yahay run buu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay alla ka cabsi qurux buu ku dhisan yahay intaas haddii udubdhaxaad ahaan aad u isticmaasho jacaylku waa wax udgoon waa wax macaan waa wax lagu raaxaysan karo aamin naftaadana ku kalsoonow lamaanahaagana ku kalsoonow kuna dadaal saddexda qodob aan soo sheegnay runta daacadnimada iyo alla ka cabsiga saddexdaasi waa udubka ugu weyn ee jacaylku leeyahay haddaa intaa ku guulaysato jacaylkaagu waa guulaysanayaa asalaamu calaykum